يا خرخان لي maxaa hibadaada ilaahay ku siiyay u barakaysan weeday oo mid hadal ay YouTube ku geeyay soo ceebta uga dhicmayso waxa sameynaysi waa wax khalad ah xadgudub ba ku sameynaysa aniga inta brand ku wareegaysan badhanka saartana loo tashay dhahay maradu markay ka jaxanto makiinada hadda dul fariisto anigu labada lugood si loo kala bahalkayo ma garanayo waxa ilaahay idin baray nabara aan cabroona korkaaga seelam cunaa saande gacmaaga aan qurubnay hay adaygii galool la eediyay maxaa godma nagaga jabay tahriibtii Yurub la eediyay maxaa curada nagaga maqan samayntii brank la eediyay maxaa ceeb looga dhacay maanta waxaan idin sidaa arrin yaabkeeda leh oo markaan arkay aan cidiyo odaygu cidiyo iska guray arintaas dad Soomaaliyeed baa ila soo wadaagay waxay iga codsadeen inaan ka soo hadlo waxa weeye niman kharkhaanlayaal oo dharka tola baa gabadhi u imanaysa gabadhaas qastiga iyo ujeedka ugu imanaysa waxa weeye inay dharka tolato wiilashii brank bay ku sameynayaan waa isla fiican yihiin oo brank waliba damid maaha mid ceeb looga tagay iyo taataabasho iyo waxayna garanayaan gacan la isku la tagay bay ku sameeyeen waxa kaaga daran waxay ku doodayaan oo sheekada ku bilaabayaan shaqa sharaf leh saxaada ceeb adeer waxaan leeyahay horta brank shaqa maaha sharafna ma leh shaqo waa taa haysataan ee kharkhaanka ee ina ku ekaataan bay ahayd brankani waa mid yaabkiisa leh waxaan rabaa inaan ka hadlo waa musharax shilin ku reebashino culi oo kule fiidiyowga hadduu ku soo gaaray si share garay oo la wadaaga asxaabtaada si umadu dhaqamada noocaas uga digtoonaato janaalkayga hadda ku cusub tahay shiina culay hadalna caswaalide subscribe-ka hayga fududaysan oo haygala baqaylin like-ta iyo comment-ga iyaga bahala iga dhintay isoo badi waxa weeye horta wiilashtan waxay dhaheen brank baan sameeynaa waxa weeye anigoo shiina ah weligay brank ma sameyn gadaalaan ka sheegi doonaa sababahan u sameyn waxa weeye waxaan rabaa wiilasha inaan mid u sheego de ilaahay hibu siiyay qofka bini aadanka ana waa dhif iyo naadir horta hibo in laba hibo in ilaahay isugu daro qofka hibo waa la siin karaa aniga hadda hibo ilaahay wuxuu siiyay ina hadlaa si fiican oo hadli karaa iyaga ilaahay wuxuu siiyay hibo kharkhaana in oo dhar la tolo yaa kharkhaan le maxaa hibadaada ilaahay ku siiyay u barakaysan weeday oo mid hadal ay YouTube ku geeyay soo ceebta uga dhicmayso waxa weeye wiilkii anu hadda dhar baan tolaya de waa kharibaya waxa weeye qofkii marka dhaw ku sagsaagaya de wadooyin aan loogu talagelin baa mashiinka waxa weeye dunta marinaya ninkan odayga ah nimankan odayaasha ah meherad kharaan baa u barakaysnayd waa u kala socotay ma qaande Soomaalidii waxa weeye baasha lacagta laga raacay waxa la maqlay YouTube qadaadic baa laga helaa waxa la yiri YouTube maxaan la tagnaa Instagram waa aragteen sawirada la taga maxaan ku yiraahdaa TikTok jazz baa la taga Facebook waxa weeye siyaasado iyo arrimo kale la jooga YouTube hadal baa la jooga qofku hadduu hadal waayo oo hibaan ilaahay u siin ceeb uga dhacaya qarar kale buu sariiranayaa oo brankaasi oo ka tahay waa aragtay family badan shakhsiyaad badan oo le brank baan sameeynaa micnaheedu waxa weeye wax kale oo camal oo laga hadlo baa la waayay nimana kale marka haddii ay fiidiyowyada ay YouTube ka keenayaan ay ka dhigi lahaayeen kuwa ay sida dharka u talaan umada ugu sharxi lahaayeen kharkhaanka sida loo barto waxa weeye fiis fiican oo ku heli lahaayeen waana ka shaqaysan lahaayeen hibadii ilaahay siiyayna dadka uga faa'iideyn lahaayeen laakiin waxay yiraahdeen waa qardajeexa kale bilaabeen dhinaca kale fiigu ka fudiyahay gabar baa u timi gabadhaasi gabar ma sha Allah bay ahayd dhowr qaab bay gabadha ugu xadgudbeen aan idin sheegayo dhowr qaab bay gabadha ugu xadgudbeen gabadhi marka ugu timi horay sida gabadhu macmiil bay u ahayd sida sheegayso waa hayeen cabirkeeda horay bay u hayeen laakiin waxay yiraahdeen dib baan ku cabireynaa ilaa waa waxay ugu tala galeen inay brank gabadhu ku sameeyaan waxay dhahayn dib baan ku cabireynaa mitir baa loola tagay gabadhi waa yaabtay qof la cabirayo waa qof wadaada waa qof asturan waa qof ilaahay xadmi u dhibayo waxa weeye difaac bay iskaga jirto isla yaan lagu soo dhawaan sida sheegaysana weesa gabadha u dhowran gabadhi saas oo istaagtay maando iska kay dhowr maando gacana tartaag war gacana tan hadda iga cabirtay tan maxaa ku geeyay bay leedahay bal waa tan horta ila eega hadijini saas waa shika qurqa saande waxa gacantu way xanuunaysaa muwaadani ma saande waxa xanuun waaye waxay dulqaadada shaqadaada hinaya war adi kaalay kilkil la iska cabiray weligii ma arkin kilkil ma la dhaha waxa ku jira weligii ma aragin maxay halkay ka cabiraysaa waa u jeedaan
cabirka mitirka markuu ula tagay oo gabadhii damcay xagal kasta inuu maxaa ku raada ka cabiro waa taqaaniin qofka horta inagdu ummad islaamaan nahay ummad dhaqanaan nahay markii kharkhaan qofku leeyahay waxa laga doonayaa inay joogto gabar dumarka u khidmaysa oo u adeegta haddii aan gabar la helayna oo ninku uu ka fursan waayo inuu gabadha cabiro si adaab leh oo uusan jirkeeda ugu gudbayn waa inuu cabiro haddii gabadhu ay iyadu iscabiri kartana waa inuu dhaho isku qabo oo isku bahalka adigu maxaa ku raadaay isula tag ninkani waa nin doonaya inuu video ka helo gabadhan YouTube uu ku camirto markuu ula tagayo dafdaf uu gabadhii la gelaya dafdafta waxa ugu daran canaan buu ugu daraya maba moodaysid nin meherada u furan tahay oo macaamiishiisa inuu ixtiraamo oo soo dhawaysto oo badeecada uu hayo uu ku socodsiyo inuu yahay maba moodaysidba dafdaf buu ula tagaya iyadiibo canaan labada dhigood goosanaya naasaatan dhe naa dhinaca kan shurub naa xagga dhe waxa ugu darnay markuu yiri naasaha cabiraya waryaana waxa sameynaysa waa wax khalad ah xadgudub ba ku sameynaysa aniga gabadhu waxay ahayd marka gabar wadaada oo dhaqan leh oo edeb leh oo waxa weeye is ilaalisay naag ka tagtay bay ahayd oo waxa weeye wax fahantay ma fahmin in wax laga duubanayo oo YouTube la geysanayo oo wuxuu baraank yahay baraank ma edeb dareen inuu yahay qaangaar ma aysan fahmin laakiin waxay fahantay ninkani inuu salcabir u soconay wax ka weyn u socdo oo jirkeeda u socdo oo inuu xilxito doonayo oo inuu taataabto doonayo bay doonatay macnaha haraashmint uu rabo inuu ku sameeyo ku xadgudbo gabadhii marka iyadoo difaac bay gashay qof wadaada oo ilaahay asturay markeedii horeetana waxa weeye bay ahayd waa iska asturtay walaalow iga daa sida tan ganacsi maaha cabaar bay doodeen waa murmeen isagii waa canaantay ugu dambeyntii gabadhii ninkii gacan bay isula tageen waa iska riixday bal waa tan eega gabigiisiiba intay qabatay qof xajmi u dhalatayna waa ahayd bay isdhaafisay barida dhulka ugu dhufatay marka ka bacdi gabadhii markay aragtay meeshan waxa yaala inuusan ganacsi ahayn ee uu yahay xulxulasho iyo taataabasho iyo dhaqan xumo kii ugu weynaa oo aysan ka warqabin in camera laga duubanayo ay u qabto nina kani inuu ugu soo bareeray inuu maxaa ku dhahdaa gacan bidixeeyo dukaankiiba waa banaanka kaga dhacday iyadoo qaylinaysa oo yaaban bay tiri khalqaalayaal kale baan aadaya oo anu iska tagay gabadha marka xadgudubka loo geystay muxuu yahay kow waxa weeye xogteedii gaarka ahayd ee shakhsi ahayd baa lagu xadgudbay dukaamada camera waa ku dhagan tahay kaamirooyinka dukaanka waxay ugu dhagan tahay ase ammaan ahaan nabadgelye ahaan si haddii dukaanka dhibaato uga dhex dhacdo haddii wax looga xado haddii maxaa ku dhahdaayay dadka macaamiisha ay wax isku qabsadaan haddii isdabamarin timaado si looga daba tago oo maxaa ku dhahdaayay loo eego kaamirooyinka ku xiran ama booliska oo kale loola wadaago dukaamada kaamirooyinka ku xiran uguma xirna in waxa inta la duubo la faafiyo xogtaas waxa weeye waa in la xafido waxa kaliya oo xogta la wadaagi karaa hay'adaha ammaanka ee ku shaqada leh iyaguna ma daabici karaan haddii aysan ahayn tusaalahaan oo kale dad meeshii isku dilay oo qofkii wax kharibay ama wax xaday uu ka baxsaday meeshii oo kale oo dadka maxaa ku dhahdaa laga codsanayo in qofka cidii aqoonsata ay keento oo kale marka horta gabadha tan xogteedii shakhsiga ahayd baa lagu xadgudbay oo waxa weeye sawirkeedii muuqaalkeedii hadalladeedii aysan ahayn in publicly ummadda loo wadaago ba horta loola wadaagay iyo dharkay doonaysaa noocu yahay waa inuu qofka xogtiisa gaarka ay waa adduunyada waxyaabaha ugu khatarsan weeye YouTube kana weyna fahansanayn iyo baraha bulshadu waa leedahay xogta shakhsiga ah waa inaad dhowrto inaad ku xadgudubto oo ku talax tagto oo si khaldan inta u adeegsato aad dadka la wadaagto maaha gabadha xogteeda shakhsiga ah waa lagu xadgudbay waxa lagu xadgudbay oo kale waxa weeye jirahan baa lagu xadgudbay taataabasha loola tagay ganacsi ma ahayn cabir ma ahayn waa la taataabtay steam aan geed loola soo gaban baa loola tagay gabadha steam taataabasho gacan aan geed loola soo gaban oo xulxulasho ah oo weliba khasab aan raalisho ahayn baa loola tagay waa xadgudub weyn weeye tan saddexaad oo loola tagay gabadha waxa weeye in ninkaas uusan ula hadlin si wanaagsan oo maxaa ku dhahdaayay ganacsigu ku dhisan yahay oo qofka macmiilka lagu soo jiito qofka dukaanka waxa laga rabaa iyo qofka macmiilka oo imanaya inay ka dhaxayso bay'ad ixtiraam kan maxaa ku wax iibsanayna inuu si ixtiraam la dukaanka ugu adeegto kan dukaan kalena inuu
qofka macmiilkiisa ah si wanaagsan ula macaamilo oo maxaa ku raadayay soo dhaweeyo hadallo dabacsan oo soo jiidasho leh iyo maxaa ku raadayay waji furan ugu yimaado gabadhi ninka canaanbu uu la tagay ya maxaa tahay shaqadayda wata waradeerta shaqada wata ma shaqadaadu inaad dharto shabay ahayde inaad gabadha gacan ula tagto ma ahay shaqadaadu bal waa kana ila eega aan cabroon korkaaga seelam cunaa saande gacmaya anam kurubnay hay hadda weela qabtaa meel ma u fiiyo waraabeyno barka baaniya saariya gefka kale oo gabadha laga galay waxa weeye markii brankiga lagu sameeyay hadiiba ay dhacday dhalinyaradaas iyagoo ku khaldanaa xaqna aan u lahayn gabadha inay brank ku sameeyaan haddii ay dhacdayba oo ay ku sameeyeen waxa ahayd gabadhi inta loo yeero in la fariisiyo biyo qabow la siiyo la walaalo arrintu brank bay ahayd naga raali ahow arrintan waxa ahayd brank wax xaqiiqa ma ahayn sidii caadiga ahayd ee aad dukaankan uga baratay ee ganacsi lagu yaqaanina hadda kugu adeegayna waxaan ka codsanaynaa marka video kana ka duubanay waa kan ma baahin karnaa oo baraha bulshada oo YouTube ko ka yahay ma geyn karnaa mise nooma ogolido waa iska tirtirnaa gabadha marka waxa laga rabay iyadoo labo inay tiraahdo ama baahiya ama ha baahinina iyadana la eego sida uga falceliso waxa laga yaabaa inay ka xumaan lahayd oo ka xanaaq lahayd oo dhihi lahayd maxaa ay u gasheen anigu raali kama yihi waxa laga yaabaa inay normally u arki lahayd laakiin ay oran lahayd yaan la baahin waxa laga yaabaa inay u fasixi lahayd oo asifani oran lahayd waa yahay waxba kama qabo si wada shaqadeed iyada u taale wax iyada u gaara xaq gaar lahayd baahayd tiina lama sameyn gabadhii inta wax laga duubtay oo la gacmeeyay oo maxaa ku raahday si sharaf daraa loola hadlay oo canaan labada dhagood lagu goostay baa markay hawshu soo dhamaatay baa waxa weeye iska baxay iyadoo xanaaqsan bay ridaa ka baxday waxa iskaga wareeraysaa YouTube iska daawanaysaa ehelkeedii baa ka daawanaya ninkeedii sida gabar asturan waxa laga yaabaa inay xaas tahay qof dhexdhexaadana way iska ahayd waxa laga yaabaa inay xaas tahay waxay ahayd qof wadaadada oo diidaysaba in loo soo dhawaado way soo dhowran tahay saacada suuqa way ku soo adeebahay marka nin wadaad hadduu qabay ka warramo haddii ehelkeedii ay arkaan waalidkeedii ila adduunka Soomaali war isku waseeganay heblaayo YouTube-ka qofkii arkaba oo gartaba luuqu ugu diraya qofkii yaqaan ugu diraya waa meeshan gareynaya waa tan oranaya haye caruur hadii leedahay ka warramo waaweyn oo iskuulkii loo geeyo haye marka maxaa ku raahdaayay gabadhaas nimankaasi waa ku gafeen waxa loo baahan yahay videoga sida ugu dhaqsa badan in looga daba tago oo YouTube looga saaro meel kasto la soo galiyay laga saaro gabadhaasna waxa kula talinaynaa waxay xaq u leedahay nimankaas hadii wadanka sharci ka jiro waa loo qabanaya waxay sameeyeen xogteedii gaarka ahayd inta aan soo tiriyay oo gaf oo khalad bay kula kaceen YouTube xataa ma ogola waxyaabaha noocaas YouTube ma ogola hadii YouTube ogaan lahaa ama aad report gareysaan idinku u sheegtaan si fudud baa looga saaraya si fudud waxyaabaha la yaabaa waxa kamid ah videoga marka eegtid 600 qof baa like saaray 100 qofna dislike bay saareen macnaheedu waxa weeye 600 qof wixii waa ka heleen oo u socbeeyeen dislike ta mawaayaa cusub kaliya u isticmaashaan idinku waayaa cusub kaliya ma dislike u isticmaashaan dislike ta macnaheeda iyo like soo ina kala fahantaa Soomaa hadda muuqaalki 600 oo like ba saarteen iyo 100 dislike macnaheedu waxa weeye dhalinyarada hawsha ay hayaan waa ku dhiirigelisay berina waxa iman doonta brankiyo kuwa kan ka sii foorxun ila idin keenan sababtoo idinka dalbaday idinka soo dhaweeyay idinka ku dhiirigeliyay hadaa laakiin dislike u badin lahaydeen oo dislike macnaheedu waxa weeye qofkii bacdamaadan la joogin xadiis baa wuxuu yahay wixii xun marka aragtid mar ka hadal wax tiraahdo waxaas ma banaana saan anu hadda uga hadlayo hadii aad maya waxa koow ah inaad gacanta ka qabato tiraahdo jooji gacanta ka qabato hadii aadan awoodina inaad ka hadashid oo tiraahdo sidaas sax ma sideedo kale hadda anu gacan ulama tii karo isuma dhawin hadii aadan labada awoodina inaad niyada ka tiraahdo waxaasi wax fiican ma aan niyada ka ridido hadda marka inaga maxaa inoo xooga tan dislike iyo report bay inoo xooga hadaba like ku boobtay waa kala tiraadeen tadalinyaradaas waxa way badaha si wateen berina wax ka daran bay keenayaan anoo shiina culay maxaan u sameyn waayay prank waligay ma sameyn ima qorshasna inaan sameeyo nin hadli karaanahay nin barnaamijyo kala keeni kara ahay maxaa prank iniga ii geynaya prank waa aragtay ceeb baa looga dhaca ka warrama qofka prank ku sameynayso haduu yahay qof dabeecad xun oo marka ku ciyaarto uu wixii hortiisa yaala intuu qabto madaxa ku dhuftay ka waran marka xaaskaaga ku sameysay prank oo tiraahdo waa ku furay soo ma furmanayso
marka xaaskaaga ku samayso marka dad marti ah inta keento gurigaaga xaaskaaga ku hor fadeexayso soo dhiigu karimayo soo macaantu hoos u dhicmayso soo lagama yaabo daqado aanay weligeed ka soo kicinay halka ka raacaan soo lagama yaabo marka prank sida Soomaalidu u fahantay maaha sida loo wadana maaha marka waxaan leeyahay war YouTube hadal buu u baahan yahay farsamooyin kale u baahan yahay prank iyo waxyaabo foolxumaa uma baahna ka daaya nacala sidaan ku yaal kharxaanayaalowna hibada ilaahay siiyay war barakaysto noo daayatan haddaan noogu imanaysan waynu soo dhaweynayna waydin sacbaynayna gacmo furan sheeroodaan idin sameynayna waydin garab gelaynaa laakiinse wax munaasaba oo idinkana aan waxba idinka soo noqonayn dadkana wax gal u ah la kaalaya oo ay kamid tahay sida mashiinka loo dharka loo taliyo nooga faa'iideeyo anaga baranaynabe badhankaas hadduu ila go'o iga go'o kharxaana la aada itusa inta prank ku wareegaysaan badhanka saartana loo tashay dhahay maradu markay ka jaxanto makiinada hadda dul fariisto anigu labada lugood si loo kala bahalkayo ma garanayo waxa ay lahaydin baray nabara anaga hadalka nooga dambeeyay anaga idin bareynay laakiin prank iyo qardajeexa kan ashlimaad ku raadinaysaan war ka daayay ilaahay idinka dadkii Soomaaliyeed waa dad badan oo bila camal ah jira idinka ilaahay hibi weyn siiyba ya wixina barakaysta saasa idin leeyahay waa masharax shil ku rabay oo kale fiidiyowga hadda ka heshay hada la casho waliid sheegto inay badato waa inaan ka garto in laga helay commentiga soo dhiibta like-ta na aad baan u jecelahay subscribe-ta iyadu janaalka rukumanaysa markasta iyo meel kasta inta barnaamij kala mid ku kulmi doona waxaan idinku dhaafayaa assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh